waxaan ku horeynayaa xildhibaan maxamed abiib oo xildhibaan reer somaliland saad ogtihiin sanadihii u dambeeyey sirdoonka jabuuti gacanta ku hayay iyo sirdoonka soomaaliya waad ogeedeen inuu afkiisa ka sheegay weli baasboor baa la siiyey markaa waa nin gada boorsiya habar cafaan inuu yahay baan malaynayaa waxaa lasoo sheegaya oo laysoo xaqiijiyey dhakhtarkii suudaanta inuu ninkii jiifo laba arrimood baa laysku haystaa arrin baa horta laysla ogolyahay in la sumeeyey xildhibaanka laakiin muhiimad waxa weeyaan halkee lagu sumeeyey maxaase loo sumaynayaa ninka yar waad ogeedeen oo inuu 150 xarig oo islahayn jiiray halkan ka baaxdubay jibuuti daawadayaal ninkan waad garanaysaan waa xildhibaan maxamed abiib ninkan nin adag buu mataqaanay ahaa xilligii musabiixi oo mucaaradka uu ahaa dee ninka kaliya wuxuu asagoo xasaanad leh muddo xiraa oo musabiix u xiraa buu haddii musabiixi meesha uu ka tegay waxaa soo baxay canaasir musabiix u shaqeynay CPP haddaa maqli jirtay yaa soo baxday oo musabiixi dee mogtahay markii dowlad meel ay ka jirto dad waxaa jira social media ka shaqeeya oo dowladdaas gudna ka qaata ama lacaga ay siiyaan marka waxaa la yidhahdaa waxay oran jireen muxuu ahaa caglayaal bay dhaheen mogta caglayaal marka waxaa weeye kama tirsana dowladda oo shaqaalaha dowladda ka mid ma aha haddana mishaar bay qaataan oo hataa ka mishaar badan yihiin mataqaana dowladda hadda waxay bilaabeen marka 3 beri u dambeeyey ninkan waa sakaraad wuxuu yaalaa isbitaal ku yaalo Jabuuti faarug baa ku dhacay dhakhaatiirtu way la dadaaleen laakiin ilaa hadda way bixin laayeen xanuunkiisa ninkii 3 beri markay hadlayeen yaa maanta wuxuu ma soo hargeysa dhex socdaan arkay oo muuqaalka duubayaba ruwa fiican meel laga maahay meel lama aadine wuxuu yiri dadka beenta ka daayay marka waayadan dambe waxa soo baxay dhalinyar TikTok iyo meel kale isticmaalaya sawirkaada la soo qaadi waxa la sameyn marka in la yiraahdo hebel uu dhintay hebel waa sakaraad hebel waa sidan hawlo badan waxa soo dhammaan waxa way waa been iyo barbaganda wax ka jiran waa inaad hubsataa shaygan markii lagu keeno wax ina hubsato way in jaakum faasiqun binabay fatabayadu hadaadan markii aad xaqiiqsan de waxay noqonaysaa un faasidiintaas dadka fasaadina qayb ka noqon 3 beri u dambeeyay waan arkay wixii mataqaana la qorayay ee ninka ku saabsan ee la lahaa uu dhintay hadda ka baxaysa wataas ma dhunta ka sii dabayar wixii ay sheegayeen faarug ba ku dhacay Jabuuti buu jiifaa wax oo dhanba marka dadka soo galina ku kalsoonaan waay waxaan kalsoonaan waay mucaarad bay ahaayeen marka mucaaradadana waxyaalo badan buu qofka uu sameyn xilliga hadda musabiixi uu joogay isaga laftiisa waxyaalo badan baa laga sameynay oo dhanka kale hadda ciro ay ka sameynayeen soma hadduu xanuunsan yahay hadduu hiis soo galo haddii wixii uu sameeyo kulli laakiin iyaga xoogaa waxay kaga ronaayeen cadaymo keenayeen ama odaygo mataan isbitaal jiifo ama soo wax si ka yahay waxbay keeni jireen laakiin kooxda hadda joogto ee hadda mucaarad ka noqday maadaama muddo dheer ee muxaafidiin ahaayeen uma tababaro qaab mucaarada marka tababar bay u baahan yihiin in la siiyo si ay u mucaaradaan xukuumadan jirta iyo howlahaas ay u sameeyaan iyo dad badan oo la shaqeeyo waxaa la rabaa dowladda lafteeda shaqeynaysa wasiirada inaad wax ku leedahay oo xitaa kusoo gudbin karaan xogta oo mishaar la siin kara oo sirdoon aad ku leedahay marka
wasaarada dhan waxaa jiray si wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo wasaarada kale oo waxaa jiray dad shaqaale tiro badan oo haddana aan weligood iman ee ka shaqeynayeen mishaarna qaadanayeen wax dhan waa la kala hufay hawl baa laga qabtay hawsha markii la qabtay kadib marka waxaa bilaabatay mucaarado ah in ninkan oo dee ninkii u adadkaa ah dee xaqiiqada markii laga hadlana wax badan buu gobolkiisa hadda uu usoo hooyey oo hadda marka ciran la doortay meesha ugu horreysay uu booqday gobolka Awdal buu ahaa isagaa la socday waxaa la dhagax dhigay waddooyin muhiim ah oo weli dhawaan la bilaabay saan maqlay waxaa dib loo soo celinayaa ugaaskoodii ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble dib baa loo soo celinaya maxaa waa kii Muuse Biixi xarb cad intii la garaacay laga ceyriyey magaalada la dhibaateeyey la yiri ma soo geli kartid la jaa-ifeeyey waxaarta loo geysan jiray waxyaabaha ay dalbadeen ka mid tahay in dib u soo noqdo ugaaskooda isagana u soo noqonaya marka ninkan gobolkii uu ka soo jeeday uu ka soo dhalaalay nin dixina intaan la egin oo bannaankaas yaalo weeye haddii la mucaarado dee isaga mucaarad buu shalay ahaa laakiin mucaarad caddaymo watu ahaa laakiin mucaarad aan caddaymo wadan oo ninkan miskiinka in la yiraahdo mataqaanaa faarig waa ku dhacay iyo waa sakraad iyo oo dhimanaya iyo hadday ka baxaysaa iyo wax badan ma soo kordhinayso haddii qofka isaga uu socdo nool yahayba waxba soo kordhin mayso laakiin muhiimaddu waxaa weeye un in aan ku dadaalno shayga runta ah caddaymahana wato maxamed abiib hadda waa nin muxaafida wuxuu watay xukuumaddan hadda cirro uu hogaaminayo yuu watay isagaana soo dhisay wuuna aamusan yahay abiib markaa aamuskaa dooni mayne waxaa la rabaa inaad la timaado firfircoonidaadii iyo la xisaabtankii dowladda inaad sii wato adigoo muxaafida in haddana la xisaabtanto oo dowladda waxyaabaha ka khaldan inaad sheegi karto haddana waayo dad badan oo dulman oo xabsida ku jiraa jira dad badan oo dulman oo magaalooyinka joogaa jira saad adiga hore u sheegi jirtayba hadda inaad sheegto ayaa loo baahanya kooxda mucaaradka ee Muuse Biixi kulley koox loo tababaray mucaaradnimo ma ahan oo uma tababara laakiin way iska baran doonaan way iska baran doonaan marbay dacaayad noo keeneen waa kii markii cirra intuu tegay Dubai intuu ku maqnaa waxay keeneen ninkii uu dhumayo suuqa dahablayaasha laga baadigoobaya ilaa muddo 3 beri markaa taasna lagu hayeen oo dadka jaha wareeriyeen ilaa markii dambe ninkii asagoo shirar muhiim ka qayb galayo la arkay على كل حال waxay noqotaba waxa weeye habaarka iyo caydi aflagaadadu ma fiicino adigan kuma fiicino aakhiradan ma fiicino qofka aad habaarisana ku dhici mayso marka bal xoogaa ramadaan lagu jiraayo dib aan yar dhigana caydi aflagaadada iyo waxyaabahan aan jirin ee dadka baraha bulshada ee lagu faafinayo